daawaday ku soo dhawow barnaamij taxane ah oo ku saabsan ururo sir ah oo ka dhex shaqeeya dalkeenna. Fiiro gaar ah barnaamijkan waxa aan ku soo bandhigaynaa xaqiiqooyin dhammaanteen inaga daahsoonaa. Waxa aan safar gaaban ku yimid magaalada London aniga oo ku socda xaflad aroos oo ehelkayga ah. 3 cisho markaan joogay ayaa ila soo hadlay nin ka tirsan urur ka mid ah kuwa sida sirta ah u shaqeeya. Waxa uu igu ballamiyay maqaaxi ku taal South Kingston oo la yiraahdo Gale Bakery. Maqaaxidii ayaan imid aniga oo werwer yari igu jiro, isna weydiinaya waxa uu iga rabo ninkani. Markii aan xoogaa fadhiyay ee aan bun iyo macmacaan cunay, ayaa waxa si kadis ah ii soo dul istaagay ninkii. Waxa uu ii sheegay in la ii soo diray oo uu ii qaadayo hodheel. Waan soo raacay oo waxa uu ii keenay hodheelka Riverbank Plaza oo ku yaala bartamaha magaalada London. Haddaba hodheelka qof baa ii sii taagnaa albaabka oo si diiran iigu soo dhaweeyay hodheelka. Waxa uu ii kaxeeyay qol albaabkiisa ay ku qoran tahay tirada 322. Qolka markii aan galay ayaan sariirta ku dul arkay suud madow, shaati madow iyo kaba madow. Waan maydhay sidii la ii tilmaamay. Dharkii madooba ayaanan ku labistay. Cabbaar ayaanan daawaday London Eye oo toos ugu beegnay daaqadda qolka aan ku jiro. Waa meel ka mid ah meelaha ugu bilicsan magaalada London, dalxiisayaal badanna waa ay joogeen. Gabalku wuu sii dhacayay, anna weli waxaan taaganahay daaqadda. Garaac xooggan ayaa albaabkii qolkaan ku jira laygu soo tumay. Haddana waa la iska furay albaabkii iyadoon amar layga qaadan. Anoo yaaban ayuu igu yidhi, mudane waxaa bilaabmay soo dhaweyntaadii. Dhankii xafladdu ay ka dhacaysay ayaan u soo raacay, waxaanu ii fadhiisiyay miis maro madow lagu sharaxay. Shaqaalaha dhammaantood waxa ay xidhan yihiin dhar madow. Miiska waxaa saaran khamri cas, waraaq sida 3 xagalka u taal oo ay ku qoran tahay Welcome to the Brotherhood. Daawadayaal, barnaamijkan oo noqon doona mid taxane ah kuna ogaan doontid ururo sir ah oo ka dhex shaqeeya waddankeena, waxaan ku soo gabagabeynayaa qaybta koowaad halkaas, inaga oo qaybta labaad soo gelin doona insha Allah.